runta u soo bandhigta hadday noqon weydo waxaa badanaysa in misuse fara badan u yimaado ilaahaynu aan kaga baqno runtana aynu sheegno su-aasha waxaad waxaa la yidhaahdaa lacagtii qofkii marka waraysiga u dhammaado inuu meelahaasuu meeraysanaya ayuu buu leeyahay haa meeshaas waruureegaya warka waxaad wariyi ku tahay waxaad adigu baartay oo aad adigu soo qortay oo adiga aad tahay isha koowaad waayahay soo dhawaada daawadayaal waa qaybta saddexaad ee bodcastka Saciid Xagaa page-ka daawanaysa waa page-ka Saciid Xagaa waxaan rabaa dadka horta dad badan baa Saciid ku yaqaan xisaabta aniga iyo Saciid professionkeena ama xirfadeena waxa weeyaan wariyaal baan nahay tababarayaal baan nahay saxaafadda ayaan dadka barnaa asalkeena shaqadeena xirfadeena asalka ahna waa wariyanimo hadday tahay radio journalist hadday tahay TV journalist intaba wariyaasha idaacadaha ka shaqeeya iyo kuwa TV-yada ka shaqeeya marka waqtiga aanu saxaafadda bilownana xilli dhow bay iska ahayd oo dhow saxaafadda adigu ma bilowday saxaafadda waxaan soo galay oon albaabkeeda ka soo galay waxaan waa documenti mahado iska dahaya dadka waa documentiga hadhowbay shalay iyo maanta 900 may ma intaan maqmaqlay mase anigu intaad warbaahinta gashay igu horreysay markii igu horreysay waxay ahayd 2002 okay ayaan wariinimo inaan wariye noqdo aan bilaabay waxaanan ka bilaabay top agaasimnimo meesha ugu horeysa agaasimnimo ka bilowday oo aan lagu gaarin xirfad iyo aqoon iyo waxbarasho aan lagu gaarin oo agaasimnimo ka bilaabay berigaas 2002 ilmo yar baan ahaa marka aad waxba ma xasuusto xoogaa muddo yara waqtiyadaas ku dhow 2003 baan ugu bilaabay okay tababarkii ugu horeeyay galay from 2003 ilaa maanta boqolkiiba 90 baan oran karaa wixii soo galay saxaafad bay iga soo galeen iyo wax xiriir la leh ay iga soo galeen iyadan ka shaqeysanay iyada xirfad iyadan ku jirtay marka saxaafadda khaladaad badan baa wariyaashana imika waad aragtaay khaladaad badan baa ka dhaca anana khaladaad badan baa naga dhacay okay waxaan rabaa dadka inaan u sheego audience-kana dhegeysanaya haddii la waayo saxaafad haddii la waayo warbaahin dadka la xisaabtanta oo su'aalo weydiisa waxaa badanaya ku takrifalka awoodda waxaa badanaya cadaalad darrada waxaa badanaysa dulmiga haddii warbaahintu ay noqon weydo marka aan yani dadka runta u soo bandhigta hadday noqon weydo waxaa badanaysa in misuse fara badan u yimaado ama ku takrifal awoodeed hagaag waxaan rabnaa mahad suu sheegay saaxiibkii maanta inaan ka sheekaysano maxaa horta saxaafadda ayuu ku saabsan yahay mawduuceena aan ka hadli doona haddii ilaahay idmo waxaan sheegi doonaa wixii naga soo maray waxaan sheegi doonaa wixii maadaamaan heer ilaa tababare aanu gaarnay wixii aan kala kulannay dadku aanu tababaraynay qaarkood markii dadku ay tababarteen waxyaabihii la baray ma dabaqeen maxaa qofka wariyaha ah iyo environmentiga waxyaabaha ka khaldanba ku jiro maxaa marka wariyaasha laga rabaa maxaa dadka siyaasiyiinta laga rabaa hadda aynu ku jirno 2026 sidee bay saxaafadda dadka weliba Soomaalida sidee bay u shaqaysaa exactly 2003 2004 2005 markaan soo galnay saxaafadda markaan ku jirnay bilowga noo ahayd xaaladii lagu shaqeyn jiray hada xaalada lagu shaqeeyo kala duwan tahay aadowey imika YouTube baan nala ka daawanaya iyo Facebook ma jirin berigaas Google wax laga search garaya ma jirin Flash ma jirin wax lagu qaato berigii aanu saxaafadda bilaabay memory ma jirin wax la yiraahdo memory wax lagu duubo cajalad baa lagu soo qaadi jiray waxaan xusuustaa baado maalin baa waxaan xusuustaa waa la iska cusbaa computerkana moogtahay wuxuu ahaa mid weyn oo desktop ah oo yani shaashada keligeed ayaa weyn oo culus halkana monitorna hoos mid kale yaala oo weyn maskaxdii oo isku xiray oo laga arkay waxa gala
meesha hadda anaga kombiyuutarradeena iyo laptopka iyo waxaas aad sida hadda sheegtay memory ama USB-ga iyo flashkan iyo waxaa la gelin jiray wax la yidhahda floppy imisuu qaadi jiray mataqaanaa markii ugu horreysay sawirrada 120 yacni wuxuu qaadaa 4 sawir oo weliba yaryardii 4 sawir oo kamarad soo sawirtay oo pixelate ahoo aad u yar iyagaba kaamarada waxaan xasuustaa aniga Saciido halkaas adaa ku watay kaamaradii ugu horeysay aan wax ku sawiray marka laga yimaado kaamarada 36 ka ahaa aan isticmaali jirnay kaamarad digital oo wax ku sawiray waxa igu horeysay kaamarad 2 megapixel ah 2 megapixel waa mar dambe waa fiican tahay be imika kaamarada meesha 4K laga marayo iyo 8K aad bay u fiicnid marka loo eego xilligaas number 1 bay ahayd ba aad bayna qaali u ahayd $200 baan kala baxay wax xasuustaa oo xilligaa joogtay qaali bay ahayd yacni waa la ii yeeran jiray waa la iga ergeysan jiray waa la iga qaadan jiray taas la soo jirtay absolutely imika internet ma jirin wax lagu diro idaacadaha marka waxaan xasuustaa gaalkacyan joogay raadiyo gaalkacyan ka shaqaynayay iyo raadiyo daljir markaan reportka siinayno wariyaasha gobolada kale ku sugan warbixinta sayna telefoon baa ku siin jirnay telefoon baad qofka lagu tirinaya speaker ku shadaya microphone ku saa ugu beegaya then halkaas ka duubaya marka halkaasaad ka warramaysaa iyo sheegaysaa xaaladihii marka aanu beriga kusoo shaqaynayna way isbedeshay laakiin horumarka yimid iyo teknolojiyadda soo horumartay sidii la filayay inay warbaahinta u horumarto uma horumarin oo dee berigii cajaladaha lagu soo duubi jiray wax ay adkayd editka marka wax la editgaraynayo iminka videogan aan duubayno waxaa fudud wixii khaldamaa kat dilid in la yidhaahdo markiiba memoriga meesha la geliyo cajalad bay ahayd cajalada haddii 60 daqiiqo tahay 60 daqiiqo waa inaa shid play garaysa dadku waxay fahmayaan aroosadii oo kale cajaladii aroosada lagu duubi jiray VHS-ka ahaa VHS-ka waa weynaaye la gelin jiray lagu duubi jiray oo aan ku shaqayn jirnay marka kuwaas markii la isticmaalayay xaaladdu way adkayd bayda way shaqo fiicanna waa la qaban jiray waraysiyo fiican baa la samayn jiray sheekooyin fiican baa la soo saari jiray sababtoo ah wariyaasha way yaraayeen dadka wariinimada doonta way yaraayeen waa imika iyadoo digitaalkii u jiro awooddaa jirto maxaa loo shaqayn la'aya that's a good question maado ani waxay la tahay markaan ku cabir ka qaadano annaga waxa jirtay marka xilligeennii cid baan ku dayin jirnay warbaahinno caalamka ah waxbaan yani hiigsi baa jiray sideebaa qofkaas mahadoo kale sidee baan ku gaari karaa qofkaas sidii yani u shaqayneen marka wariinimadeennu waxay ahayd qofka inuu profession noqdo wax barto qofka reporterka ah qofka farsamayaqaan wax la yiraahdo jiray wax kale ma aha ninkaas wax kale ma qabanayo mixerkaas dul fadhiya mixerkaas ku shaqaynaya haddaan yar dib u celiyo dadka mahadoo aniga intaanan 2002 saxaafadda caadiyan u soo gelin ka hor anigu waxaan ahaa cameraman oo 9kii waxaan ahaa nin ku shaqayn jiray sawir qaade foota neel foota ayaan ka shaqayn jiray marka kamarooyinka coodabaleysa waxaad soo dafahmaya footadaas waxay xasuusaa dhowna ku daraynaa haddaan waqti u helnay dark room baa jiray qol la yidhahdo soo oo lagu caddayn jiray haddaan sharaxaya qisa iga soo martay marka saas aadana kaaga shaqeeyay waaye horta intaan marka su-aashaadana aan ilaawin ee ahaa maxaa isbedelay horta aan dib yar u noqono waxaan ka shaqayn jiray sawir qaada footo kamarooyinka wax ku sawiri jiray mahadow waxay ahayn 3 kamero anigu waqtigeenni kamera waxaa la oran jiray Zenit cameras waxaa la oran jiray Zenit waxay ahayd ruush bay ahayd ama Russia kamaradaasi dhinaca birta ku lahayd black and white ay ahayd marka la furo banikalka ya banikalka wax lagu يعني صورك كينيا dadka waxaan filayaa banikalkaas aad uma fahmayaan waxaan rabaa halkaan inaan u soo dhigno waa kan banikalka la sheegayo banikalka xamsa tusi doona xamsa banikalka tus waa kan xamsa idin tusay banikalkaas oo aad aragteen ayaad qolka waxaad la galaysaa dark room talyaaniga laguma furi karo may markaad galaysid waxaad la galaysaa dark room ama camera sakuresa talyaaniga wuxuu yiraahdaa كاميرا سكوريس كاميرا سكور دام مقش وعنيها ميل قول حرن قول كاس نل عس أما جدودنا على الشدايا أبا أختر ها دك واحد قلنا يسا وقت صعب بريسا دك مركز حرته
kaamirada marka mar walba aad sawir qaadayso waa cabaynaysaa check qofka markaad saarto waa foxka ma aragtay lineeyada qofku waa inaad saxdaa xaggan markaad ka saxdid xaggan soro numbersay ku leedahay nambaro oo ah hadba leyrka uu ku shidan yahay nooceeda tusaalahaan kale mar b uu jiro ilaa 1,000 bay lahayd 1,000 marka aad kuma sawiri karto qof oo sawir yaro kur ah ama teesara ah ama half ah aad ka qaadaysid number 1,000 kuma sawiri kartid 1,000 waxaa loogu talagalay wax xoog u socda oo yani marka aan baranayna kamarada diyaaradoo kale iyo train oo kale marka la sawir markiiba waa shutter speedka markiiba macna kumbad geenaysa wax degdeg markaa sawiraysa laakiin qof fadhiya isaa ku soo eegay markuu yahay qofka la fariisiyo shaarkiisa wixiisa yani wixiisa dhan loo habeeyo oo caadi labadiis gacmood oo jilbihiisa saarto ad biibaan jeclaan jiray inaan ku biida waxa weeyaan has dhaqaajin waa bilaabaya 1 2 indhaha xaggan soo eeg 2 3 chak ودينيسا marka shutterka isxiraya zanadkaas waan ku soo shaqeeyay waxaan ku soo shaqeeyay kamarad kale idan la yiraahdo yashikada marka ilaa 3 anaga waqtigeeni 1 2 3 bay ahayd yashika 1 yashika 2 Japan bay ahayd waxa kale ku soo shaqeeyay waqtigaas kamarad la yiraahdo I don't know hadii inay jirto in kale laga yaabay hadii jirto laakiin hadii Google-ka laga baaro waxaas waa la helay hadda waxa la oran jiray Mamiya kamaradaha soo hadda xaggan ku jeedaa lenska iyo xagga hore xagee ku jeeda xaggan soo ma qofka xagee ka eega xagga dambe ku istaaga meel yaro isha la saartay leeda soo maaha maamiya waxa weeyaan tripodka ama tripodka ku taagan tahay xagga sare laga furaya xagganaad ka eegaysaa meesha san loo eegay saasa u eegaysaa marka xaggani ku leeda marka cabirka xagganaad ka wadaa marka xagganaad dhag saasa u eegays 12 xabba kaliya la qaadaa حكو سويريسا لبي طبعا قف كليه يكون سوير هادو لبي طبعا كسوير ما هينو كقصار وعندي هذا تسك صورت موبايلك ما لبي طبعا كسوير وإن لايت هيستيد هذا دبدو بحديد لايت تكون وانا بلاك أو وايد وحردن كوي كلك وحي قاعدين تير 6 صدني اللي صور صدني اللي كامها لابي كرا كامها لابنا خسارة دعيسة ما ما إذا أدو وتكش مركز تاس وحي هيرت بيلو مركز حالداس لجوسو شقي عندي بقول نقول سؤال شيء iyadoo saas xaaladu adkeedo xaaladda berigi dambe warbaahinta aad bilowdayna cajaladii waxaad ku duubi jirtay manualka caadiga ahay hadii cod la yiraahdo waxa lagu soo duubi jiray cajalada caadiga ee cajaladii caadiga ama Sony cajalada la dhigi jiray Sanyo cajalada la oran jiray ama 60 ah ama 90 ah oo labada dhinac loo rogo dhinacana marka loo geliyo markuu dhamaado wax ku duubto dhaq waa dawanaysa dad dib baa u furaysa rekoorka ama waxaad ku dib baa u celin hadana dhinaca kale ayaa duubaysa ninbaan bari anagoo filim daawanayna Hindiya ayaa Hindiga daawo jirtay miya kaasadeegii waa filimkii baa dhamaaday markii filimkii laga cajalada la gelinayay uu arkay maanta ninkii filimkii baa dhamaaday markaas wuxuu yiri uu dhamaad filimkii waa dhamaatay cajalad kale ma hayso noorog buu leeyahay dhinac kale lagu rogo wuxuu yaqaan eesaa oo dhinac kale loo rogo dhinac kale waxba ku duuban tan waxba ku duuban laba cad kala duuban marka taas iyadoo lagu shaqeeyo ay xaaladu adkeyd oo la xisaabtan u dhici jiray oo sheekooyin dhici jiray why not imika okay waagaas mahadow anigu waxaan qabaa waxa horta yaraa waxbarashadu qofka markuu soo noqonay wari noqonay xilligeena waa kasii hor ilaa dawladdiina way burburtay mana jiraan iskuulla ma jiraan macadyo ma jiraan waa waxaad adigu bawsato waxaad adigoo cid kaga dayato waxaad adigu soo akhriso kaliya ku xirnay qofka marka ma doonayo wax dhib badan ilaa qof raba inuu wax sorta ka gungaaro qofkaasi marka sidan sida lagu kala adkeyd baasha way adkeyd oo waayo yani ma jiri jirin waa qofku ka sii mana bilna way ahayd warbaahintu way yarayd aadna way u yarayd marka qofku wuxuu ku soo bixi jiray wax la yiraahdo talent yani qofka codka qofka aqrinta marka ma jiri jirin qof wax aqriya markuu tago ama saxaafad inuu bilaabo uu rabo qof waxa la warqada hal mar isha saa marka u saaro ma hado saa markuu yiraahdo ala leeyahay bilow siduu u boobsiinayo qofkaas qofku ka boobsiis badan yahay ka fasiixsan yahay waa la qaadan jiray qofku ka cod wanaagsan yahay xagga codka ma arag
tusaale ahaan oo kale aasin qof waxba iska yeelan leh assalaamu calaykum waraxmatullah codba codku ka weyn yahay raadiyahana soo horreeyay annaga raadiyaha soo horreeyay ama radio anigu markaan idaacadda bilaabayay ilmo yar baan ahaa ma adigu da'du riili da'deedu way cimrigaaga allah na siiyo ma yaride codkayguna wuu dhudhubnaa dabeedna dadkaada igu oran jiray codkaagu yarya waxaan xasuustaa marka aan nin baa maalin abwaana oo waxaan arkay ana wax ka duubaya ayaa markuu gabiyey wuu xiiqay milix intuu qaatay xabad cusbaa ayuu afka kastay wuu liqonay markaasaan ku yidhi hadhow marka maxaa milixda u cunaysa dae wuxuu yidhi dhuuntee sifaysaa codkan sifaysanay milixdii baan anna qaadan jiray marka idaacadda aan soo gelay warkana intaasaa idhaahdo holka gacanta geliyo kulanti waxaanoo wanaagsan dhegeystayaal kusoo oran jiray macnaha si codkaygu u weynaado marka dadka codkaasaa laga eegi jiray qoraalkaa laga eegi jiray waxaa laga eegi jiray qofkan muxuu ku fiican yahay qof baa farsamo yaqaannimo keliya technicality qalabka keliya aad u yaqaana isku xirka codka oo marka ku kala bedelayo haddana kusoo dhawaada weliba sidoo qodob fiican oo aad ka dhawaajisay baa jira oo ahaa idaacado warbaahin waxaa jirta role model ah waxaan xasuustaa anu markaa warbaahinta baranayay macaahid ma jirin YouTube iyo internet iyo wax laga baarana ma jirin waxaan role model ah oo wax ka baran jiray oo dhageysan jiray BBC barnaamijyada samayn jirtay barnaamijka xanaanada xoolaha barnaamijkii weydiin iyo warcelin barnaamijkii faaqidaada toddobaadka yacni xubno waxaa la samayn jiray fiijaro yaryaroo gaagaaban oo marka warku u dhammaado warbixin baa la geli jiray markii dambe waxay ku soo ururtay ilaa Englishka laga baran jiray ayaa laga baran jiray xataa exactly kii Englishka jiray luqadda Englishka the long way home barnaamijkii ayaa laga jiray aad nuux dowladda barnaamijyo wax laga bartay ahayd xitaa barnaamijka tahniyada xambaliyada salaamaha macnuu lahaa oo de marka soo daayay waa lagu dayan jiray waxay Allah naxariista awki iyo erayada sidii isugu xiri jiray Aabana Muuse iyo aad iyo aad iyo Baybu iyo dadkaas marka ay daadihinayaan Shamso Baybu iyo markay daadihinayaan de waxay programku live uu ku dhex galaya ku jeclaysiin xitaa heesaha la soo xulayo marka heesta la soo xulayo la keenay waxaan xasuustaa maalin baa waxa lagu soo diray heesta Cumar Duule uu qaaday tiraahda aan adduunka jooge haygeynin aakhiro ayaa markii heesta ka baxday waa gabadhii barnaamijka xiriirinaysaa waxay tiri adduunka ha jooga ha geynin aakhiro macnaha siday u tiri stiil aniga saameyn bay ugu leedahay allah u naxariisto Cumar Duule saas u tiri yaa si yaroo fudud oo naxariis leh ayay uga saartay oo u tiri waa tahay ma hadow horta ma aad bay muhiim u tahay hadba ku dheeraanay weli waana soo gulin su'aashii aad ku bilowday barnaamijka dib ugu soo noqono way sharaxaadan hore haddaan wadno ayaaba laga gaaray meelihii ahayd hadda marka aan u soo noqono marka waxayna isku mid ahayn mahadow ani markaan war raadiyo oo aan magaalada war ka doono waxaan raadin jiray ilaan wariyaal badanaa lagu baxaya suuqa lagu aadaya soo maahan warar la keena mahad warka uu keeni doono adiga inaan ka fiicnaado mahad wuxuu yani ku fikirayaa xamse warka uu keeni doono war ka fiican inaan keeno xamse wuxuu ka fikirayaa axmed warku keeni doono war ka fiican qof walba wuxuu raadin jiray marka wax يعني لف دنتيا عادي oo bedelaya oo bulshadina xiriir la leh oo markuu xaafada tago uu yiraahdo dhageysta bixinteeda barnaamijkayga oo dhageyso ayu ahayn jiray yani waxaas hadda ma hado warbixin bal lama doonayaba qof aqoon intuu uu soo kacay intuu fariistay uu shakeeray YouTube ku furtay ama waxbuu dhag warba ka sameeyay degdeg uu kulay halkan uu fadhiya war degdega waxa sadhac yaa u sheegay anaga tan kale wax kasta xigashay lahayn wax kasta shil baa dhacay wala tagay meel walba kacay wala tagay dibad noqoto ma hado BBC da anaga role model noo ahayd marka warka BBC da ka baxa oo wariyaha hatta tarjumaad waagigaas hore ma jiro waa la dhageysan jiray kali waa la duubaya dib baa loo tarjumaya warkaasi marka lagu daray wararka caalamka anagu waan ka horreey jirnay Soomaa labada duhurnimo soo gali jirtay Soomaa waa laga horreyn jiray inta badan waxa la warkan oo sheegtay BBC da ayaa lagu soo qabal xigan jiray war la iska sheego ama qof meesha jooga oo kale hadii aad hesho wallahi ma waxaan xasuustaa aniga radio-ga maarta halowga hadda mar waan ka soo shaqeeyay aniga waxaan ahaan jiray taar walan ahaan jiray ma haysano telefoon ma jirin
laakiin taarkaasaan haysanay maxaan samaynaynaa idaacadda meeshaas ka jirta tusaalahaan kale radio fana jiri jiray Ethiopia oo Ethiopia ay lahayd هذه waxaa jiri jiray idaacad subaxii soo gasha oo Sacuudi Carabiya ka soo gasha مكة المكرمة oo Maka al-Mukarrama oo Soomaali ku hadasha ayaa jiri jirtay dadka meesha jooga marka qof haysta radiogaas ayaa idaacaddii socoto ku qabanaya xagana ka duubnay warka يعني وجود يا لو جري عادي وانا اللي كيني جري هذا وحي يودن ويسبدلين سؤال مركو حرام هذا مهمنا صحافة ku saabsan marka laga soo tago wixii aan wax ku soo baranay kulli iyadoo aanan ku dhameyn karin ba al barnaamij laba barnaamij ana insha Allah marba qayb aan wax kaga soo dari doono waxaan rabnaa hadda xilligan lagu jiro wariyaasha hadda shaqeeya sidii ay u shaqeeyaan anaga ma jiri jirin lacag Soomaaliyeed oo wari la siiyo la qabax ma jirin la luush ma jirin wiya mar dambu bilowday shuruur ma jirin lacag intaad wax qof wax ka soo qabato oo lacag weydiin jirto oo weydiinaysa ma jirin ma bal qofkii dad xariifiin oo qof isku jiri kara laakiin waxaan ka hadlayaa jamac sida guud war la soo qaaday lacag laga qaado ma dhici jirin ceebna way nagu ahayd ba hadda markaa eegto ma hado sida lagu shaqeeyo shuruurkii ama qabaxdii ama lacagtan basraaci caanihii waxa doontid u bix wariyaasha inay qaataan saxaafadda qayb ku leedahay macnaa sax ma tahay wariyaasha horta lacagta ay qaataan lacagta ay siyaasiyiinta ka qaataan lacagta ay sheekooyinka ku qaataan ee sameynayaan ay ku qaataan ayaa la laaluushkiya qabax iyo la yiraahdaa iyo shuruur lacagtaasi waa waxa warbaahinta baabi'iyay oo waxa shaqalaanta ka dhigay qofkan haddii uu tago aan barigii aan warbaahinta ka shaqaynaynay waxyaaba caanka noo ah waxaa ka mid ah aniga war baa la ii diray lacag layma dirin haddii lacag lagu diro oo aad lacag raadisid tusaalahaan oo kale bariis dhacay magaalada la keenay bariiskii dhacay ama dhakhtar baa dad ku dhinteen ama waxbaa lagu sumoobay biyihii magaalada lagu sumoobay barkad baa waxbaa sheekaa dhacday sheekada qofka wariyaha hadduu raadiyo oo uu dabca inuu ka sheekeeyo qof lacag qaatana uu yahay dee kii meesha iska lahaa baa lacag siinaya inaga daa buu leeyahay lacag shaqadan waxaan iska daa wuu siinayaa marka ugu yaraan sheekadii buu dhigayaa baahidan jirta ma jirin ama si kale u dhigaya isagii buu difaacayaaba because of the lacag qabaxda imika waxaa bilowday qabaxda imika waa laga soo tegey warbaahinta imika mushkiladda ku bilaabatay waxaa weeyaan siyaasi kasta iyo xafiis kasta oo wargeli karo qof wariye ah ayay ka dhigtay madaxa media qofka wariyaha waa gateman waa qof waardiye ka ah warbaahinta haddii wariye kale uu damco inuu sheeko sameeyo mas-uulkii lama soo hadlaya ninka saaxiibkiisa wariyaha baa la soo hadlaya siciidoo adiga meesha anay ugu ixtiraam buu leeyahay anaa joogee waa isku adigii hebel adigii mas-uulka isku adin hor firiisanaya warkiina waa dhammaynayaa arrintiina ka bax sheekadan kor uga bax war aniga qofkan maxaa inagala dhexeeya sheeka inaga dhexayse qofkan su-aasha aan ku weydiinaynaa ka jawaabo oo dhinaciisa haddii iyagii baa geetmaan isku noqday qabyaaladii baa badatay warbaahintu berigii hore waxyaaba ay ka marnayd qabyaaladaasa ka mid ah iminka qabyaaladii baa badatay oo mushkilad ku noqotay siyaasiyiintii qudhoodu waxay u soo tafaxaytay inay warbaahinta baabi'iyaan oo ay marba mid qabtaan waxaa la yaab leh waxaad arkaysaa qof wariye ah oo kule wariyaan ahay waxaan rabaa inaan sheekooyin fiican sameeyo waa lagu og yahay inuu hayo beejka mas-uul hebel ayuu admin ka yahay isagaa u boosti gareeya isagaa tiktoka ka duuba videoskan intuu qabto mar walba uu hor soconayo heesaha la saarayo arka guuxa heesaha la saarayo isagaa ka duuba wariyaan ahay buu ku leeyahay wax kalena shaqadiisa maa ninkaa uun bis hadduu meher tegayo hadduu xafiis ka baxayo hadduu gelayo hadduu maqaayad xitaa caadi iska tago galabta iska tagay hadduu kubad ciyaarayo wuu duubaya wuu daba socdaa waxaa maalba anigoo magaalada lascala jooga tababar ka wada ayaa war baan ku arkay nin wariyaa uu qoray wuxuu yidhi guddoomiyaha gobolka gaarigiisii ayaa wuxuu ka istaagay arday dariiqa goynaysay waayo hadduu ka istaagana arday laamiga jaraysay ayuu ka istaagay sawiruu ka qaada markiiba war buu ka soo dhigay uu yiri bay gudoomiyuhu maanta naxariis muujiyo ka istaagay muxuu doonay inuu sameeyo inuu jiro ma jiri lahaa waxaan arkay aqliga intaas heerka la gaaray marka ma adu sheekadu way dheer tahay
macquul ma tahay marka imika saxaafadii miyay dhisaysaa in wasiirkii wasiir ku-xigeenkii agaasimihii gudoomiyihii xaafadda dadkii kale laamaha joogay kii wax doonayey qof walba inuu samaysto cid wax ka duubta oo yidhahda iga duub oo xitaa marka wax la duubay uu eego untii isaga uu lahaa uu taasi saxaafaddeena miyay dhisaysaa way baabi'inaysaa dadkaas horta weriyaal ma aha kow number one aad ugu weriye ma aha qofkaas dadka sidooda public relation ka shaqeeya weriyaal ma aha journalistuhu wuu ka duwan yahay dadka miidiyaha ka shaqeeya waa kee journalistaha saxda ah journalistuhu waxa laga doonaya maxay noqonaysaa qofka raadiyo runta dadka runta u soo bandhiga iyadoo sugan oo la hubo lacagna aan qaadan runta haddaad ka shaqaysid lacag ba qaadan maysid ma qaadanayso ma haysaa wax ku saabsan sheeko ama wax uun saa ku saabsan nin saaxiibkeeya ayaa maalin u tegey ninuu sheeko ka duubayey ninkaas waa sheegi karnaa sidai ila tahay mahado sadiiq maxamed burmad aad baan ku salaamay saaxiib u ahoo very talent ahoo sheekooyin fiican soo wada shaqeynay soo wada shaqeynay marka sheeku nin ka soo qabtay warbixin buu sameynayay marka warbixinta waa in la balance gareeyo nin baa side baa nin mas-uula uga baahday ninkii mas-uulkaa buu u tegey wuxuu u wareystay wareysigiisu ka soo qaatay wuu ka soo tegey markuu baxay buu lambarkaaga ii sheeg suur maxaa dhacay suur xoogaa geelaan kuu dirayaa caanihii may ha ii dirin buu yidhi hadda waayahay kaale meeshaan ku baranaya wax yar ka qaado maya ma rabo aan wada qadayno xitaa aan wada qadayno maya ma qadaynayno niyo anigu shir waad mahadsan tahay anigu inaa codka shaqadeedii baa qabsay si fiican baad ii ixtiraamtay shaqa wareysiga waad siisay su-aalahan saan kuu rabo waa igaga jawaabtay aad baad u mahadsan tahay dee sheekadan samaysanaya waan baxaya nin kalarku qabtay ninkii wuu aamini lahay istaag buu yidhi waxbaad maagan tahay ma sax codkayga dee saacad bay ku qaadatay inuu ka dhaadhiciyo oo uu yidhaahdo warniyahow lacag ma qaato wariyaashan lacagta kaa qaatana waa khaldan yihiin waraysi baa lagugu yimid warkaagayba ahayd in lagaa iibsado waraysigaaga in lacag lagugu in wax lagu siiyey ahayd adigiibaa free igu siiyey waqtigaaga ii huray marka waad mahadsan tahay saas ninkii ka dhaadhici weyday marka hore laakiin markii dambe ugu qancay si aan caadi ahayn difaacuba u noqdayba isagaa mar walba yani wuxuu ogaaday inuu professional yahay markuu sheekadiisii dhegeystay markuu dhegeystay wuxuu ka helay wuxuu ogaaday in dee uusan ninka waxba umaaganayn uusan khalad samaynin wixii uu ka sida caadiga ahayd inuu ugu sii daayay qabaxdu marka qofkaas maadow adaa ku watay qofkaas hadaadan waxba qaadan ood wixii runta ka sheegto qofkaasi berri hadduu arko adoo cid kale kumaagaysa muxuu ku leeyahay wuu kaa dhicinaya oo runaga tagu leeyahay anuuba iga qaado asaa marka tusaale u soo qaadanaya anuu iga qaadan waayo buu ku leeyahay bilcagsigeeda hadduu qaato marka kaba soo qaado qofkii adoo halkaa soo socdo kale markii ku arko muxuu leeyahay wuu kaa dhuumanaya ninka weyn iska dhigay maaragtay wariyaha weyn iska dhigay $20 siiya ninkaas walaal iminka lamaba qariyaba iminka ma qarsoon in lacagta la siiyaba qof weyn oo wariye oo waxaad arkaysaa xaflad yaroo gabdha qabsadan intuu tago war ka soo samaynaya qof war ka soo degay intuu u tago qof caadiya kaa saxafi maaha ka soo samaynaya may caadiyan warbaahin weyn buu ka shaqeeyaa dadkaasi suxufiyiin maaha wariyaal ma aha warbaahintu waa inay noqoto waxa la yidhaha awoodda afraad baa la yidhahdaa laakiin hadda awoodda afraad maaha waa awoodda koowaad waa inay noqoto mid la xisaabtanta dadka mas-uuliyiinta waa inay noqoto mid la xisaabtanta dadka awoodda leh waa inay dadka dhibaatada ka ilaaliso waa inay wixii khaldan soo saarto tii markay dhici weyday marka sheekada qofka isagaa ku difaacaya saciidow haddaad ka qaadan weydid dhinaca kale haddaad ka qaadatid isagii baa ku odhanaya waa caadaqaate ku odhanaya shakhsigii baa ku caayaya marka ninkaas lacag kamuu qaadan dabeedna isagii baa hadhow u noqday qof difaaca sheekadii u noqday hadduu raashinka waran kuu qaada mahad uu ku yidhahdo anigu wax cuna xishoo baa tahay mar walbaba raashin ha ka cunin biyo ha ka cabin waxaad tusaale waad mahadsan tahay sheekadu way dheeraatay waxaan ku gebagabeynayaa nin madaxweyne ka noqday rijinada soomaaliya mid ka mid ah ayaa waxaa la kulmay wariyayaal baa yimid ajnabi ah marka uu soo dhoweeyey wariyaashii sheekooyin fiican bay samaysteen ilaa xabsiyadaa bay booqdeen iskoort ciidan baa lagu daray meelaha taariikhigaa bay booqdeen sheekooyin fiican bay samaysteen waa la ilaaliyey madaxweynahay wareysteen marka dambe wariyaashii lookalka ahaa ayaa carooday annagana albaabkan kama furo markii qof kaloo meel kale ka yimaadana waxaa leeyahay kaale wareys baa la siinaya ma annagana loo siin waayo dowladda madaxweynihii baa maqlay buuqi wariyaasha wuxuu ku yidhi iigu yeer waa loogu yeeray
marka la soo fariisiyo maxaa ka cabanaysan ma saas ka caban wuxuu rabay aniga dhageysta wariya yimid ninkan wariyo ahaa inta uu ila joogay aniga madaxtooyada joogay caagad biyo cabin shaaha madaxtooyada yaa xataa mu cabin wiiga diiday inuu ila qadeeyay iska badaayay isaga biyihiisa watay isaga wixiisa watay gaariga isaga soo kireystay SBU isaga lacag ka soo baxsaday isaga wixiisa watay adiga laakiin hebelow iyaga buu tilmaamay ololaha marka ku jiray misaa iga qaadatay adiga misaa iga qaadatay haddaan imika wareysi ku siiyo oo aan ku soo fariisiyo dee marka wareysigu dhamaado ma dhaqaaqaysid su-aasha lixaad baa sugaysaa su-aasha lixaad waxaa la yidhahdaa lacagtii qofkii marka wareysigu u dhamaado meelahaasuu meereysanaya miiska qadada meeshaas wareegaya si loo afgarto marka igama dhamaa haddaa xataa tagtid xitaa hadduu baxa telefoon baa igu soo wareerinaysaa warkii waa sameeyey saasaan ka dhigay waa qurxiyey waa kamay waa wax soo dir haddaanu caadi bareer ii weydiinba uusa ii oran marka wuxuu yidhi aniga wariyaal maa hidin buu yidhi markaad noqotaan dad war doonaya hadal waa diyaar baa idin ahay isku tasho adiga waxaaga laakiin markaad lacag bixinaysaan ma aha boontigaana meel ku qorta aad iyo aad isku tasho wariyaashu ha noqdaan dad la xisaabtama dadka awoodda leh madax bannaan cidna aanan bareshar ku hayn gudaha iyo dibadda waa la ixtiraamayaa macnay yeelanayaan hal qof hadduu shaqada qabto hadduu sheekooyin fiican sameeyo hadduu baaritaan sameeyo baaritaan weynba looma baahnaba imika khaladaadkii bannaan maba qarsoonaba bannaan bay yaallaan had wax walba haa documented way wax walba way yaallaan dadkii baa jooga dadkii baa doonaya inay hadlaan waa open wax walba xogtii ma qarsoona xilliga wax la qarqarin jiray wax la balkiin jiray maba jiraba marka inay wariyaashu noqdaan kuwa dadka awoodda la xisaabtama waxay keenaysaa inay dimuqraadiyaddu horumarto dowladnimadu horumarto cadaaladdu hagaagto dulmiga laga baxo nabadgelyadu hagaagto qofka xilka loo dhiibayo xitaa madaxweynuhu uu ka warwaro mid ku ceebeen doona miyaa iminka wasiirada la magacaabo dee cidina ma waraysato therefore lama garanayo qofkan valuegiisaba tamay waxaa la marayaaba in mahadow kambani iska daaba wasiiradii waxaase kambaniyaasha in ay samaystaan xitaa waa nin iska ganacsado iska caadiya kambanigiisa qolada miidiya samaysta kuwan waxay samaynayaan wasiirkoo kale kaliya hadal dooni hal coduu duubaya wuxuu u dirayaa dhammaan social media dadka u jooga oo dhan ayaa leeyahay geli soo kuma arkin hal qoraal oo qof soo qoray oo loo diray 120 qof oo isku waxba in iska bedelin taas macnaheedu waxay tahay qofkaasi yani waxba kuma leh anigu sidaan kuugu iri oo lacagta kuugu sii ilaa lacagaad qaadatay ayaad si deynaysaa waa ma warar maaha xitaa hadduu ku qori lahaa u dhihi lahaa warkan ma aha war oo yani wuu caddayn lahaa xitaa awooddaa male hay kuma qori karaan sababta wax oo dhan baa saas ah 90% waxa meesha ka baxaya waa beyd marka wax walba uu ku qorayaa meey wixii isagu sameeyay qofkana beyd way qofkan laftiisu ma doonaya in lagu qoro maxaa yeelay haddii lagu qoro in soo diyaarsan qofkan wuxuu iibsanayaa aaminaad dadku ay ku qabaan wariyaha waxaan uu lacag siinayo qof halka iska wareegay cidna lacag siinayso waa sax waxa lacagta loo siinayo waxa weeyaan platformkan adiga de ha iyo aaminaadda lagu qabo ee dadku aaminsan yihiin weeyaan oraah baa jirta warbaahineed oo caan ah oo tiraahda no news is bad news war ma jiro waa war xun haddaanu war jirin macnaheeda waxa weeyaan haddaan xog la helin wax lagu tala gaarayo go'aan wax lagu gaarayo ma jiro haddaanay dadkani war helin oo aanay khaladaadka dhacaya helin ma dhacayso in yani dadku ay helaan xog ay ku go'aan gaari karaan maada waa saa sheegta horta waan dheereen sheekadee waxa muhiimaan rabaa anigana inaan kaga baxo waan rabaa hal talo oo aan siinayo dadka wariyaasha ah iyo kuwa aan wariyaasha ahayn dadka wariyaasha waxaan leeyahay warka waxaad wariyi ku tahay waxaad adigu baartay oo aad adigu soo qortay oo adiga aad tahay isha koowaad difaaci karta adduunya aakhirada oo haddii lagu weydiiyo waxaan aad dhihi karta caddeynteedu waa taa wariyow waxa aad sheegaysid iska hubi aayadda quraanka ay ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibu qowman bijahaala yacni wax kasta ha iska sheegin wariyow waxaad sheegaysid walaal iska hubi oo wax saxan oo dadku waxa u taraya u sheeg dadka aan wariyaasha ahayn ee guryaha jooga ee suuqa jooga ee maqaayadaha fadhiya ee meelaha iska wareegaya ee beejashka leh ee brofaylada leh war baa mahadoo hadda tusaale dagaal baa meel ka dhacay
hadda kaba soo qaad kan hadda socdo kale hadda shidaalkiya ciriiri noqday iyo waxa iyo ilaah baan kugu dhaariye nin sariirtiisa jooga magaalada iska jooga wuxuu soo qorayaa degdeg isaa soo qoro degdeg markaba saadruwa meel u ka soo xigtay ma sheegayo markaas shil gaariya meel ka dhacay qofaa soo geli shilkaasaa dhacay waxaas ku dhacay qofkii lahaa oo shacaba ayaa iska soo geliya caadi citizen journalism kale uu noqon karaa uu soo geliyo qofkii page-kii soo geliya dad waaweyn ka qaadanay shil ka dhacay isla qodobka sheegayo war shacabka ah ee shilka gaari ag marayay ee xoolo dhaqatada ah ee meesha marayay sawirka tuu qaado page-kiisa geliyay iyo kan xiganaya keeba wariye ah dawaa kaaba kan aan u socdoba kan aan u socdo waxa weeyaanba war waxan adiga xitaa aad maqasho aragtay ha iska qaadan qofka shacabka ahow wariyaha la mid tahay waxan hubi meeqa ku aragnay inta wax la soo gelay dan been wal yaro sawirka waa sawir hore leeyahay marka labada talaan u siinana waxayna iska hubiya dadkan iska ka hadlaya meelo ayna jooginna iska daaya waxaad ka hadashaa meesha aad joogtid dadka ku nool noloshooda wixii saameyn ku leh haddaad hargeysa joogto qofka hargeysa jooga waxaa u fiican oo wax u taraya bii'addaas uu ku nool yahay haddaad magaalo muqdisho joogto dadka muqdisho jooga uga hadal adoo muqdisho jooga qof halkan jooga wax halkan ka dhacay inaad u sheegtaa waxaa kaga sii muhiimsan wixii localka isaga dantiisa ahaa marka aynu locals garayno oo aan ka dhigno wax yacni dadku wax u taraya ilaahaynu aan kaga baqno runtana aynu sheegno wixii maaragtay propagandada iyo lacagna aynan qaadan lacagna aynan qaadan intaas anigu ku soo koobi lahaa waayahay waad mahadsantaa Saciid waa intaas shaqada ilaahay uga baqa intaasaaba ugu muhiimsan waxa sheegaysa in aakhiradaada iyo saxumayn aad baad u mahadsantihiin programkan wuu dheer yahay halkaasaan ku joojinaynaa tan iyo kulan dambe waxaan idin sidaas iyo nabadgelyo waxaan u mahad celinaynaa xamse oo soo saarista iyo farsameyntaba noo qaabilsanaa aniga Saciid Xagaayo idin leh nabadgelyo